السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada barteena YouTube. maanta waxaan ka hadli doonaa muuqaalkeena tobanka madaxweyne ee ugu taajirsan adduunka sanada 2024 intayna gudgalin muuqaalkeenan. haddaad nagu cusub tahay kanaalka subscribe dhe, haddaad hore loola joogtana muuqaalka like gare si uu meel fog u gaadho. soo qabso koobka kafeega ambashaha inakeen aynu gudaha u galno muuqaalkeena maanta. toban Nur Sultan Nazarbayev madaxweynaha tobnaad ee ugu taajirsan adduunka waa Nur Sultan Nazarbayev oo ah madaxweynaha dalka Kazakhstan. wuxuu dhashay sanadii 1940kii isagoo ku dhashay dalka Kazakhstan. waa siyaasiyahan iyo taliye military. waa madaxweynihii ugu horeeyay ee uu yeesho dalka Kazakhstan laga soo bilaabo sanadii 1991kii ilaa sanadii 2019kii. wuxuu ahaa madaxweynaha dalkaas. waxa lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 1 bilyan oo dollarka Mareykanka. 9 Prince Albert labaad madaxweynaha sagaalaad ee ugu taajirsan adduunka waa Prince Albert labaad. waa boqorka u arrimiya Monaco. wuxuu dhashay sanadii 1958 isagoo ku dhashay dalka Monaco. wuxuu ahaa ilmaha labaad gurigooda wuxuuna noqday boqorka wadankiisa Monaco sanadu markay ahayd 2005. wuxuuna ka taajiray real estateska iyo maalgelinta. waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 1 bilyan oo dollarka Mareykanka. 8 Sebastian Pinera madaxweynaha sideedaad ee ugu taajirsan adduunku waa Sebastian Pinera oo ah madaxweynaha dalka Chile. wuxuuna noqday madaxweynaha dalka Chile sanadii 2010 ilaa 2014 iyo mar kale oo dib loo doortay. wuxuu dhashay sanadii 1949 isagoo ku dhashay Santiago ee dalka Chile. wuxuu dhintay sanadii 2024 bishii labaad kadib markii burburtay helicopter uu saarnaa. wuxuu ka taajiray kabaniye badan oo uu leeyahay. wuxuu ku leeyahay shirkadda diyaaradaha ee wadanka Chile. wuxuu iibsaday kanaalada amba TV-yada wadanka Chile. wuxuu iibsaday kooxaha kubadda ka ciyaara kuwooda ugu caansan dalka Chile. lacagta uu haysto waxaa lagu qiyaasaa 2.9 bilyan oo dollarka Mareykanka. 7 Donald Trump madaxweynaha toddobaad ee ugu taajirsan adduunku waa Donald Trump oo ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka. wuxuu dhashay sanadii 1946 isagoo ku dhashay magaalada New York ee dalka Mareykanka. laga soo bilaabo sanadii 2016 November ilaa sanadii 2021 ayuu ahaa madaxweynaha dalkaas. hadda wuxuu rabaa inuu mar kale tartamo oo uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka. wuxuu ka taajiray oo uu leeyahay ganacsiyo fara badan oo ay ku jiraan real estatesku. waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 4.9 bilyan oo dollarka Mareykanka. 6 Kim Jong-un madaxweynaha lixaad ee ugu taajirsan adduunku waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong-un. wuxuu dhashay sanadu markay ahayd 1984 isagoo ku dhashay dalka North Korea. laga soo bilaabo 2011 ilaa hadda waa madaxweynaha dalkaas. wuxuuna ka taajiray warshadaha, alaabaha la dhoofiyo iyo kuwa la soo dejiyo. waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 5 bilyan oo dollarka Mareykanka. 5 Xasan al-Bolkiah madaxweynaha shanaad ee ugu taajirsan adduunku waa boqor Xasan al-Bolkiah oo ah madaxweynaha dalka Brunei. wuxuu dhashay sanadii 1946 waxaana lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah madaxda ugu hantida badan adduunka aynu maanta ku noolnahay. dalkiisana wuxuu ku xukumaa kitaabka Alle iyo diinta Islaamka. sidoo kale waa mid ka mid ah boqorada ugu waqtiga dheer xukumayay dalalkooda. wuxuu ka taajiray iibinta gaasta iyo saliidaha dihin ee dalkiisa ku kaydsan. waxaa lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 30 bilyan oo dollarka Mareykanka. 4 King Maha madaxweynaha afraad ee ugu taajirsan adduunku waa King Maha ama boqorka Thailand. waa boqorkii tobnaad ee u arrimiyay boqortooyada dalka Thailand kadib 2016 markuu la wareegay xilka boqornimo. wuxuu dhashay sanadii 1952 isagoo ku dhashay caasimadda Bangkok ee dalka Thailand. wuxuu ka taajiray boqornimada iyo warshadaha iyo kheyraadka hoos yimaada. waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 43 bilyan oo dollarka Mareykanka. 3 Mohammed bin Salman madaxweynaha saddexaad ugu taajirsan adduunku waa Mohammed bin Salman. waana boqorka dalka Sacuudi Carabiya. waxaa dhalay boqorka hore dalkaas Sacuudi Carabiya isagoo dhintay boqorkaasi 2015. wuxuu dhashay Mohammed bin Salman sanadu markay ahayd 1985. waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 25 bilyan oo dollarka Mareykanka. 2 Khalifa bin Zayed Al Nahyan madaxweynaha labaad ee ugu taajirsan adduunku waa Khalifa bin Zayed Al Nahyan. waa madaxweynihii labaad ee dalka Imaaraadka Carabta iyo maamulka Abu Dhabi.
wuxuu dhashay sanadii 1948 wuxuuna dhintay sanadii 2022 wuxuu ka dhashay mid ka mid ah qoysaska ugu lacagta badan adduunka aynu maanta ku noolnahay waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu haystay intaan u dhiman 30 bilyan oo dollarka Mareykanka. Vladimir Putin madaxweynaha koowaad ee ugu taajirsan waa Vladimir Putin oo ah madaxweynaha dalka Russia. wuxuu ku dhashay sanadii 1952 isagoo ku dhashay wadanka Russia. bishii May 2012 ayuu noqday madaxweynihii afaraad ee dalka Ruushka waxaana dib loogu xodeeyay March 2018 iyo mar kale oo ahayd sanadii 2024 waxaa lagu qiyaasaa lacagta uu haysto 200 oo bilyan oo dollarka Mareykanka wuxuuna leeyahay private jet u gaara waxaana lagu tiriyaa madaxweynayaasha ugu mayalka adag waana mid ka mid ah dadka ugu lacagta badan ama hantida badan. halkaas ayuuna inoogu eegyahay muuqaalkeeni maanta. ha iloobin hadduu ku qanciyo muuqaalkani inaad like saarto subscribe na saar si uu kuu soo gaadho muuqaal kasta waanu soo gelinaa. intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaal la mid ah sidaas iyo maca salaama fi amaanillah.